haddii aad leedahay ma aaminayo ilaa qof aan ceeb lahayn mooyee haddaba waxaad naftaada u aamintay midna ogsoonow wakhtiga qofna ma bedelo laakiin waxa uu muujiyaa xaqiiqda dadka caqliga wanaagsani waa ubax qurux badan oo aan ka bixin beertaada mana jiro qof qalbigaaga dhaawici kara haddii aanad siraha iyo meelaha aad ku liidato u sheegin haddii aad la fadhiisato jaahiliinta aamus haddiise aad la fadhiisato culimmadana aamus maxaa yeelay kan jaahilka ahi dulqaad ayaa kaaga kordhaya kan caalimka ahina aqoon ayaad ka kororsanaysaa mar kastoo ay gabadha bulshada ku dhex yeelato sharaf iyo soo dhoweyn waxay muujinaysaa wanaagga iyo karaamada qoyskeeda waxa ugu weyn ee kor u qaadana waa dhowrsanaanteeda waad iga istaahishaa inaan kuu riyaaqo ku xushmeeyo kuuna dhoola caddeeyo maxaa yeelay waxaan kaa helaa bogaadin iyo jacayl mug leh jacaylkuna waa sida dagaal si fudud ku bilowda se waxa uu ku dhammaadaa si adag macquulna ma ahan in la ilaawo waxaan rajaynayaa inaan ku jeclaan doono inta ka dhiman nolosha waayo waxaad tahay qofka keliya ee naftayda bogsiiya islamarkaana aan ku aaminay riyada mustaqbalkayga